maxaa maanta ka dhacay Karin khasaare intee leeg ayaa ka dhashay isku horimaad dhex maray ciidamada Puntland iyo ciidamo ka gododsan arrimaha qaadka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa warbixintan ee soo dhawaada daawadayaal isku horimaad maanta ka dhacay deegaanka Karin ciidanka Puntland iyo ciidamada ka gododsan qaadka oo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ku xayiray garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan ilaa inta la ogyahay hal ruux ayaa ku dhaawacmay isku horimaadka kaas oo haatan xaaladiisa lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ciidamada gododsan ayaa diiday inuu gudbo qaadka miirowga kaas oo ka soo degay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxay arintani timi kadib markii ganacsade si weyn looga yaqaano deegaanada Puntland dawladdu ka hor istaagtay qaad uu ka soo dejin jiray garoonka diyaaradaha Boosaaso kana soo iibsan jiray Itoobiya wararka aan helnay ayaa sheegaya in duqa degmada Boosaaso Cabdiraxmaan Jinac uu ku baxay hadda deegaanka Karin si xalka loo dejiyo loona kala qaado ciidamada halka ku dagaalamay dhanka madaxweyne Deni oo lagu yaqaano inuusan tanaasulin xilliyada dagaalka ayaa amar ku bixiyay in la soo qabto xubnihii ka dambeeyay is-horstaaga lagu sameeyay qaadka miirowga oo saacado kooban ku xayirnaa deegaanka Karin madaxweyne Deni oo halka ka doorbiday dagaal tan iyo markii uu yimi xukunka madaxweynaha talada haya ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu diiwaan gashan taariikhda dagaalo uu galay oo dhiig badan ku daatay sida dagaalkii xarunta baarlamaanka Puntland dagaalkii BSF dagaalkii Dhahar iyo dagaalo kale kuwaas oo ilaa hadda uusan ka garaabin dadkii waxyeelada ka soo gaartay daawade haddaad halkan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad warbixinta sii share garayso asxaabtaada la wadaagto kuna soo biiro bogga Qardho.